su-aashaan ku weydiinayo waxa weeyaan sidee u aragtaa shirkii ingiriiska lagu qabtay iyo go'aanadii ka soo baxay bismillaahi raxmaani raxiim walaal waad mahadsan tahay su-aashaad weydiisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siduu shirka u dhacay waan ugu mahad celinaynaa ummadda Soomaali iyo dawladaha ka soo qayb galay haasan dawladda Ingiriiska oo maaragtay qaymo weyn iyo qaayo u danaynaysa ummadda Soomaali bacda 20 sano ina burburkiyo dhibaatadii ay ka baxdo oo khayraadkeega ay isticmaasho shirka oo go'aanadii ka soo baxayna aan aad u taageersanahay haddaan nahay beelaha qurbaha degan oo khaasatan beesha ciise aad baan u soo dhaweynaynaa shirka ururkeega magaciisana waxa la yiraahdaa City Civil Society oo nafayeenka ahay aad baan u qaybaynaynaa waxa ka soo baxay go'aanada in beesha Soomaali dhammaanteed meel kasta joogtaba ay nabad iyo caafimaad ku waarto khayraadka dhulkana ay wada faqato tan su'aasha kale oo xigtaan ku weydiinayo waa sidee u aragtaa goboleedyada cusub oo laga sameeyay Soomaaliya gudaheeda goboladana waan soo dhaweynaynaa annagoo beesha ciise annagu gobol ku dhawaaqnay gobolkaas oo la yiraahdo Saylac Lugaya State Saylac Lugaya State wuxuu u taagan yahay Soomaali inay midowdo khayraadkeega wada qodato madaxweynaha Saylac Lugaya State-na waxa la yiraahdaa Mahad Abiib Maxamed oo jooga maaragtay Yurub wadan kamida khayraadkana dhulka inaan faqano dadkuna ay midoobaan u taagan waxa kale oo ku sheegay walaalkiyow bishan joogno 10keega London buu imanayaa madaxweynaha Soomaaliya oo dhanna lagu casuumay hotel weyn la loo kireeyay waxaana lagu soo dhaweynayaa madaxweynaha si weyn oo qiimo qaayale iyo state-kaaba waxa kale oo bisha dambe ka degi doona ama May ama April xamar oo wada hadal uu noo socdo xildhibaanada iyo dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaali Shariif dhammaantood wada hadal noo socdaan shalay mise daraadna wuxuu kula kulmay madaxweynuhu Norway Prime Ministerka Soomaaliya iyo Nuur Cadde oo taqaaniin oo ahaan jiray Prime Ministerkii hore si qiimo leh sharaf leh u soo dhaweeyay madaxweynaha state-ka waana ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa state-ka inuu Soomaali u taagnaado oo sharaftiisa halka ka muujo oo dhulka wixii khayraad waxaan leenahay bad waxaan leenahay waxa badan oo khayraad inuu state-ka maanta oo aad iyo aad u haadiyo ummadda Soomaali inay wada jir noqoto ayaan soo dhaweynaynaa